maxaan iga rabaa maxaa idinka halleeyay war qofan wax ka haysta hadduu jir xataa walaalo waxaasaa iga haystaa ii dheh youtube-kaanaan kugu nacna xataa ii dheh anaa waxaan kugu haysto kugu dhibsada ii dheh qalada hadda kor iga gashay ii dheh xataa anaa kaa raalagino garkaaga jilbaan qabsanaa laakiin anoona ku haysanin waxaana ku geysanaynin ninka ragga lama ciilo wallahi ninka ragga lama ciilo haddana qofka markuu meel ayaa garab qabasho u baahan yahay soomaalidii cadowtinimadii ay u qabtay dadka lixaadkoodu u dhammaystirnaa waa laga soo gudbay hadda waxa ay maraysaa dadkii lixaadkoodu dhinnaa ama less ableka ahaa in cadowtinimo axmaqnimo ah lagula dhaqmo sidaad halkaasi ka arkaysaan ninkani waa baabajay oo aad wada garanaysaan waa nin dhallinyaro ah oo youtuber ah oo entertainer ah waxa uu ku nool yahay dalkeenna hooyo bal waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhibaatada lagu sameeyey iyo cidda ku samaynaysa dabcan dad ajaaniib ah ma aha waa soomaali kale waxa ficilka noocaasa kula dhaqmaya ila dhagaysta hadallada baabajay video aniga aan leeyahay oo youtube-kayga aan soo gashtay oo lacag ii shaqaynayay qof wuxuu ku xirtay copyright videogiis copyright lagu xirtay ana tiktok bashqada ii soo dhacday waa yaab ma ka siin waxa markay bashqa gmail-ka ii soo dhacday wiili ag fadhiyaan tusiyaan dhahay bal adaa waxaan xogaa ingiriiska taqaanidee firi bal maxaa dhacnay wuxuu yidhi videogana copyright lagugu haystaa videogan dib ugu laabanay waa video ana aan leeyahay kulligiina wada feesteen waa videogii xafladda ay ii sameynaysay wiilo taakoo idinka dhan aan wada taqaanin xafladdeeda 100 markii aan gaaray inta xafladda imaaday oo cameraman waa in aniga aan u fasaxay kulligeedu way duubanayeen waxaan isdhahay hal wada bariiseeyo qof kastaba risqiisa dhinacdu ilaahay ka sahli karo ha ka hena isdhahay kulligeedu wada fasaxay beerta banaadir aan joognay waa iska wada duuban anagoo dhan dad badan ka soo qayb galay haddii qofka asagoo copyright ku xira aniga oo iimaan la oo dhiila walaalo videoga muuqaalkayga ku jiro copyright aan rabaa aan ku xira haddii kale iga baxsto dhiilahay videoga dhan meesha waa ka saari lahaa anna waxaan ka heli lahaa ilaah iskaga qabi lahaa laakiin videogii marka waxay ii shaqeeyay asdahay bal bishaas wax ka baxso ka cun videogii qofkii xasilimo oo igaga xiray copyright la igaga xiray waa shibaan ka dhahay meel kastaan galgalay waxba lagu celceliyay waxa la qof baasaboor wato oo baasaboor wata qofkaas ku xiraya allahay aniga qofku yahay Allahu a'lam beesha 100 qof ka badan joogeen qofkii copyright ku xiran aniga ma sheegi kari Allahu a'lam ilaahu kaliya ka warqabo ilaahi yaa og haduu xasilimo u sameeyay haduu si kale u sameeyay ilaahi yaa og ana maanta qof naafaan ahay garab kala ma haysto hooyo iyo manolo aabi iyo manolo kaliya waxaan ku noolahay waxa waaye waxaan afkayga u sheeganaya aan iskaga dadka iskaga qosolsiinay aan ku noolahay magaalada markaan maray qofka iska kay salaamay haddaba sidaad u maqlaysaan baabajay ayaa xafladaasi loo sameeyay wiilo ayaa u sameysay markuu 100,000 oo subscribers ka gaaray dad badan ayaa ka soo qayb galay qof kasta wuxuu yiri ogolaansho ayaan u siiyay in uu duubto si loo wada caysho mal naxariista inta la eg fiiriya dabcan music copyright ah ma ahan say ila tahay way ogyihiin in yani musicaasi markaas dadka lagu qabsanayo so qofkii dadkii kamidka ahaa dad duubanayay ayaa qof iska dhigay in uu isagu leeyahay maadaama meeshiina ay hal meel tahay ayaa waxa ku qabtay copyright ku qabtay taasi waa xaraam calayk qofkaasi wax irsaaqad ah kama helayo wax uu sameeyayna waa wax aad looga yaxyaxo run ahaantii ka ilmaysiiyey ninkan dhalinyarada ah aad baan uga xunahay balse waxaan leenahay baabajay be strong waxba ma ahan intan nin talent le baa tahay run ahaantii qofka kugu sameeyeyna dabcan talentigaas aa leedahay ayay jealous ka yihiin so qofka marka jealous laga yahay dhibaatooyin fara badan ayaa soo gaara waxa uuna rabaa in aad u daciifto ha u daciifin waxaan ku leeyahay kasii qaad adag Soomaali oo dhan ayaa ku garab taagan run ahaantii nin la jecel yahay ayaa tahay good entertainer ah run ahaantii qalbi fiican maskax leh so qofka isaga dhibkaas kugu sameeyay intaba ma laha waa zero wax kasta eber buu ka yahay hadhihin waxba ma soo baran waa soo baratay ilaahay talenti
buu ku siiyey qofka ma ahan barashadu keliya wax buug iyo qalin loo qaato cilmiga maskaxdaada ee kasoo maaxanaya ayaa dad badan ka xun yihiin dabcan ee ka mid yahay qofka ficilkaas kugu sameeyey ha u bixin sidaan hore kugu sheegay adayg bad ka sii qaadaysaa in ka badan ayaad helaysaa population ka badan intii hore aad u haysatayna insha allah waad helaysaa hadalkaaguna meel dheer ayuu gaarayaa كبرت لو حرق أنا قف فيديو جيس أنا صوق الشنا يقولون مي عرفتين إلهي كعبس قف فيديو جيس أنا صوق الشنا يقولي يا عرق إله أنا قدرنا نقول أبورتي إله مدينا هذا ما اللي حتى قبل والله واحد ما فيرنا يعني وأسك حمالنا وأسك شقيسان لها قعنتي ذو محمقات هذا وحي أفكار وكينو يا وحي أفلو كانينا قفا أنت كوسو في الإنسان حاسين وحي عصو شقيسو كاسي قادنا أو حاسين كبرت كان إحرام أنا أقوان تسمري إله أقوان تسمر إلهي سيبر وكمذوبين كرا إلهي ما أنت قف كاس أو تقول لي إلهي وانا يخبن كرا إله الجوب إله أنا كداي ولا إله كداي وحكستو أحكي له عنها يعني ما جرت قف كاستو مسلم لباي إله أنا يخبطو قف أنا أحكي جاب صدق منهن قف أنا كحد قد منهن قلبتي أسك صباحا لا يمكن أسك في الإستا وش جيت كمان يا أصحاب أسك لا شيء كاس أنت سنيد كل إستا أسك باش على ما تقف أو مركز كبود كرمي قف أو لحد كيس المسؤولية مركز وعرض كرنمي صعد حتى ما قري كان أفكس أسك حماش ولا قف ولا أسك تجو عمان تحس كلا السماستة لكن حالي يقربها ما حد ينكهلي والقف وحكي يستخدمون جرعته ولا لو حاسة إيه هستا إله يوتيوب كانوا قوون عن حتى إله أنا وحن قوه هستقول إفسد إله قال هذا كار إيه قش إله حتى أنا كاره لكن غير كري جربان قبصنا لكن أنا نكو هيسنين وحنكو جيسنين نكره قلنا معيله والله نكره قلنا معيله هذا نقفكم مركم يلا يا قرب خبش وباين قفكي موقالكس كبرت إيه إحرق هذا إلهي كعب صنايو كبرت إيه خالو تيك توك جيجا أنا حس كجشناينا وحيسي حس كجسمسنا فراني جيجا خالو run ahaantii aad baan ula ilmeeyey fideogan markaan daawaday baabajay emotionalkiisa aad baan uga xumaaday ilmada ka da-aysa waxaa laga yaabaa qofka ficilkan ku sameeyey inuu yahay qof laxaadkiisii ilaahay u dhammaystiray qofka uu dulmiga ka gelayana inuu yahay nin aan laxaadkiisii dhammaystirnayn ilaahay wuu isku daawanayaa dunidan qofna wax ma uusan waayin ninkan sida uu sheegay afkaasuu wax ku cunaa nin xooggiisa wax ku qabsan kara ma aha ilmo u shaqeeyaa dalkeena hooyana waa ku noolyahay imagine intii yarayd oo ilaha dhaqaale kaa soo gelaysay ha lagaa afqabto cadowtinimada intaas la eg soomaaliyey wax la qaadan kara ma ahan iimaan la-aantaasna wallaahi irsaaqad inaadan ka helayn 100 kun xataa hadday kaa soo gasho maanta 100kaas kun ilaa waa wax aad dulmi ku dhacday iyo xaqdarro aad u geysatay wallaahi sakan baad ku waayeysaa waxaan ilaahay rajaynayaa inuu qalbadiisa qofkaasi gilgilo copyright-kana uu ka qaado waxaan ku leeyahay ninkaas videogiisa uu soo dhibtooday waxyaalaha qaybtood muusigyada oo kale waa maqli jiray copyright baa la iskaga qabsadaa balse nin videogiisii uu usoo dhibtooday copyright ku xiro xaq ma ahan baabajey waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay qalbiga u qaboojiyo soomaaliya oo dhanna waa garab taagan tahay soomaaliyey waa wada garab istaagaynaa ninkaas ilaahay idinkiisa dhibaatadan ilaahay wuu ka dulqaadayaa kuwii ficilkaas ku sameeyeyna ilaahay waxaan uga baryaynaa dee maxaan dhahnaa waaba ilmadaas uu ilmaysiiyey ayaa wax kasta ku noqonaysaba taasaaba inkaar ku noqonaysa annagana waxaan leenahay ilaahay xaqaha ku tuso ilaahay ha kusoo hanuuniyo una soo celi ninkan miskiinka ah xoolihiisa aad ka dhacday ilaa waa xoolihiisii hadalkiisaasuu wax ku keensadaasuu sheegay I'm so sorry Baba J, I'm so sorry wallahi billah asxaabay videoga intaan mid lamid ku kulmayna waxaan idinka codsanayaa fadlan videoga share noo dhaha waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh love you all bye bye